martida barnaamijka ganacsiga ee maanta waa Ismahaan Maxamed Qayb oo loo yaqaano Umu Cabdusalaan waa soo saaraha saliidda bidaarta Mustabshira Hair Oil kana hadasha arrimaha bulshada soo dhawo Ismahaan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waan dhawahay jazakallahu khayr. barnaamijka maanta waxaan ku qaadaa dhigaynaa faa'iidada ama muhiimadda ay haweeneyda u leedahay qoyska in ay ganacsato. Adiga haddii aad sawir nooga bixiso ama khiyaasto muhiimad intee leeg ay haweeneyda u leedahay in ay ganacsato qoyska? Waxay u leedahay muhiimad aad u baaxad weyn oo la soo koobi karin. Alxamdulillah ganacsiga waa qayb nolosha kamid ah sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku saleysan waqtigii ummahatul mu'miniin hadii la fiiriyo sida Khadija bint Khuwaylid oo kale ay ganacsan jirtay. marka ganacsiga saxda ah wuxuu caawin karaa qoyska gudaha caawin karaa ilmaha caawin karaa guriga caawin karaa ummadda muslimiinta caawin karaa marka gabadha inay wax soo saar lahaato oo ganacsi ay sameyso waa income kaas wuxuu ku soo noqonayaa gudahana wax tar badan ayuu leeyahay hadii kaba soo qaadninkeeda dhaqaale fiican una haysanin dhaqaalaas ilmaha madrasadooda iskuulkooda waxbarashadii cuntadii caafimaadkii wax badan ay ka qayb qaadanaysaa hadii nin dhaqaale haysta uu yahay oo maanta gacan adag uu yahay ko tusaale way dhacdaa gabadhaas waxa laga yaabaa waxyaalaha iyadu u baahan tahay oo ninka xitaa wax si markay dhahdo in badan uu dhibsan lahaa waxay iyada soo saaratay in nafteedii iyo ubadkeedii inay ku kabato hadii ay noqoto inay sadaqa baxsato ama qof baahan ay wax tarayso ama ehelkeeda ha noqdo ama ummadda kale islaamka ha noqdo marka lama soo koobi karo gabadha ganacsanaysa income-kay sameynayso wax tarkiisa waxal iyo laba lagu soo koobi karo maaha aad buu u ballaaran yahay Ismahaan mararka qaar markaan fiirino bulshada dhexdeeda waxa la helaa in haweeneyda uu seegeeda u diido inay ganacsato iyadoo awal markii hore intaysan guriga yagleelin ay ganacsan jirtay maadaama aad arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqdo bulshadina aad ku dhex jirto ma jirtaa haweeney aad ka warhaysid awal ganacsan jirtay balse hadda ka fariisatay ganacsigeeda hadal kaga yimid dhanka seega oogis way badan yihiin lama soo koobi karo inta badanna wiilka iyo gabadha marka koobaad ay soo xusheen iskuursanayaan oo dhaho head kama hor istaagi karo ganacsigaaga waad sii wadanaysaa markii guriga la isku imaadana oo ninkii uu ku been furo oo laga yaabo inuu ganacsiga u diido siyaabo badan baa keeni kara ninka on khaladka ma la saarayo ama ragga khaladka lama saarayo ama gabadha ganacsiga loo diiday khaladka lama saarayo laakiin qofka ganacsanaysa oo hooyada muslimada ama hooyada Soomaaliyeed gurigeeda joogta waxa saaran mas'uuliyadii zawjkeedii iyo gurigeedii ninkeeda haduu kaafinayo oo maxaan ku dhahay dhinac kasta oo ka kaafinayo oo marka ana ku kaafinaya ma ganacsan kartid markii horena ay ku heshiiyeen heshiiskii abuuray waxa laga yaabaa inay u socon weyso burbur inay reerka u keento laga yaabaa gabadhan qaabka u ganacsanayso inuu ninkeeda raali ka ahayn ama uu ka maseerayo ama waxyaalo khalad ay ku dhacayso oo diinta islaamka xitaa aan ku haboonayn laakiin gabadha muslimada hadii iyada sharafteedii ay dhowrayso diinteeda ay dhowrayso gurigeedii mas'uuliyadda ka saaran zawjkeedii ilmaheeda ay dhowrayso mas'uuliyadiina ayna ka dayacmaynin sababtoo adoo dhahaysid ganacsi baan ganacsanayaa waxaan keenayaa dhaqaalo laakiin ilmihii ay dayacan yihiin guriga uu dayacan yahay ninkaagu kaama yeelayo because waxaad dayacday kii koobaad oo ilaahay kaagala xisaabtamayay baad ilowday laakiin gabadha muslimada hadii dhinac kasta hadii iska dhisto gurigeedii iyo ninkeedii caruurteedii ay iskugu aadan yihiin oo ayna dayacmaynin qaab badan ay gabadha muslimada u ganacsan karta ayaa jira marka way jiraan rag badan iyo dumar badan oo markii hore gabadheedo shaqaysanaysa markii guriga soo gashay iskhilaafeen ganacsigiina uu diiday sababaha keenayana lama dhihi karo gabadha dhinaceedu ama dhinaca wiilka waa laakiin isfahan darro badan oo jirta iyo iscaawimaad la'aan badan oo jirta ayaa inta badan keenta dhibaatooyinka noocaas waxaa tiri qaabab badan oo haweeneyda u ganacsan karta ayaa jirta iyadoo dayicin mas'uuliyadda reerkeeda ka saarna bal qaababkaasi qaabab kamid ah oo haweeneyda u ganacsan karta iyadoo mas'uuliyadda reerkeedana gudanaysa waa qaababku way badan yihiin horta qof kasta Soomaaliya ama gabadha ama wiil ha ahaato ilaahay wuxuu siiyay xikmad gaar ah ama talent waxa loo yaqaano oo qofkiis ogeyn qaabku yani waxa ilaahay uu ku manaystay uu qofkii soo saari karo banaanka dadkii ku anfici karo gabadh waxaad arkaysaa wax baratay waxbarashadeedii jaamacadeedii maxaan ku dhahaye bachelor holder guriga iska fadhida waxa kaliya ku qufulan inay dhahdo waxaan soo bartay takhasuska noocaas hadaan xafiis aadin ma shaqaysan karo ku qufulan laakiin hadii maskaxdeeda ka shaqaysiiso wax badan ay qabsan karto gabdhaha qaarkood waxa ku qufulan lacag baan haystaa waa inaan aniga dukaan furtaa oo fadhiista ayaa ku qufulan laakiin waxay ku ganacsan kartaa dad aamina inay sheerki ku darsato ama bishii ama 6 bilood ama sanadkii kula xisaabtami karto dhaqaalaheedii oo marka dhaqaalo ugu sii darsami karo waxa kale ku ganacsan kartaa gabadha farsamooyin badan oo dumarka ay yaqaanaan baa jira laakiin
ay iska ignore garanayaan oo isdhahayaan waxaan waxba kama soo saari sida iska dhaaf marka adduunkan waxa la isku dhaafayna maaha lacag inaad leedahay oo ganacsi weyn inaad ku dhex jirtid waxa waaye qofka talent buu leeyahay inuu la soo baxo banaanka inuu keeno meel alaal meesha joogtid baa lagugu imanaya marka adoo gurigaaga jooga xigmadu ilaahay siiyay adigoon ka fiirinaynin bachelorga aan ku takhasusay hadaan waaye waxaan kaga shaqay wax kale ma aqaani adoon isdhahaynin marka bachelor soo qaadanaysid ama secondary ka baxaysid macnaheedu maaha intaas inaad ku ekaatid waxbarashadan waxay ku tusaysaa jidadkii iyo sida doonta uga dhex dabaalan lahayd bay ku tusaysaa maaha kaliya waxaan baan ku takhasusay waan fadhiisanahay inaad dhahdid tusaalena haddaan iska soo qaado takhasuskayga waa finance bachelor business administration specialization area waa finance waa inaan xafiis tagaa bank inaan tago ka shaqeeyo waay okay intii hore waan ka soo shaqeeyay reer baan yeeshay haddii aan hadda dhaho aroortii baan baxaya guuxan tigaya xafiiskii baan ka soo shaqeynaya 4 galabnimaan ka soo baxaya gurigayga waxaan soo gaaraya 5 barka ilaa 6 meeqa shay baa dayacmay laakiin hadda maskaxdayda ka soo qaysiinayso maxaa kale ku fiican tahay maxaa kale ilaahay ku siiyay heybad kale maxaa leedahay maxaad soo saari kartaa wax badan oo maanta aan koobi karin baan soo saari karaa marka adoo gurigaaga jooga gabadha Soomaaliyeed oo wax baratay iyo gabadhan wax baranin wax badan bay soo saari karaan tusaale haddaan u noqono hooyooyinkoodii iyo baadiyi haddaan u noqono gabdhaha farsamada gacanta guryaha iyaga dhistaan iyaga wax tolaan iyaga wax badan sameeyaan gabadha hadda Gaarisa joogta ama Wajeer joogta ama Mandera joogta waxay ka shaqeyn kartaa wax badan oo umada u baahan yihiin oo maanta laga tagay hadii la sameeyna laga gadanayo oo beec leh ay heli kartaa midda kale gabadh kasta hadii dhahdo dukaan baan fadhiisanaya dhar baan gadayaa waxan baan gadayaa wixii isku mid ay wada yihiin lacag badanna kama soo saarayso inkastoo ilaahay nin kasta irsaaqadiisa u qoray laakiin business markaa sameynaysid waa inuu noqdo wax profit leh adigii ku anfacaya daalkaagina soo kabaya adigiina dhaqaalihii aad ku kaban karto isdhiig karta leeyahay alxamdulillah wax badan baan sameeyay laakiin hadii noqoto heblaay dukaan furatay adigana furo heblaaya kan sameeyay adna kan sameeyay haduu qofku isdhaho wax badan ma sameyn kartid adna waa daali ilmihii gurigii iyo zawjkaagina waa ka dayacmay furiinka badka badan iyo waxyaalaha buuqa badanna way sii badanayaan marka qaab badan oo loo ganacsan kara ayaa jira gabdhaha Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay in maskaxdooda furan talantiga leeyihiin inay banaanka keenaan oo ku ganacsadaan waa sidaan aniga isleeyahay ama anigu aan aaminsanahay waad mahadsan tahay ismahaan hadda waad ganacsataa balse waxaad sheegtay in qaababka kale lagu ganacsan karo aad ku ganacsato sida in aad gurigaaga adigoo jooga ganacsato reerkaagina aysan ka dayacmaynin ma jirtaa caqabad aad kala kulantay mar aad istiri banaanka ku soo ganacso saygaaga si aad tusaale ugu noqoto haweenka kale caqabadahaasi la kulmayagana okay ada mudan waa su'aal fiican markii hore waa ugu matalagelin inaan banaanka u baxo ama banaanka intaan tagay aniga zawjkeygina isku dhacna qabad inaan ugu imaado maba dhicin because waxa u dhici weysay Soomaalidu waxay tiraa ka fiirso intaadan falin wax saas ah ayay Soomaalida dhahdaa mahmahda marka intaadan wixii falin boo inaad ka fiirsataa ka fikirtaa boqol dhinac ka fiirsaa hadan waxaan sameey maxaa imanaya adoo ninkaaga maskaxdiisina wareerinaynin adigana is wareerinaynin dadkii aad ka dhalatayna de mushkilo family problem aadan u keenaynin marka ani ma igu dhicin caqabadaas waxay igu dhici weysay markii hore wax baranayay waxaan ugu talagalay in case hadii ilaahay qoys iga dhigo awlaad isiyo guriga aan fariisto maxaan soo saari karaa maxaan umada ku anfici karaa sida hadda arrimaha bulshada kale maaha kaliya inaad business lacag inaad fiirisid adoo gurigaaga jooga inaad dadkii wax barto inaad gabadha walaasha dhiban intaad la sheekaysato inaad ka nafisiso problemkeeda inaad xal aad u keeni karto wax badan baan sameeyaa markii horeba aanu ardayad oo from primary secondary ila jaamacadan ka soo gaaray madrasada dhinaca kale ka diyaarinay waxaan isku diyaarinay on in case hada hooyo noqoto berri maxaad umada ku tari kartaa adoo gurigaaga jooga because hooyo markaa noqotid mar wala cabaatay wad xanuunsanaysaa mar xamligii baa kugu cuslaanay ma dhaqdhaqaaqi kartid mar ilmihii baad nuujinaysaa oo mulbad ku jirtaa gurigii shaqadiisii way badan tahay mas'uuliyadda ku saaran waa mas'uuliyad aad u culus marka taraga loo fiiriyo waxaas oo dhan adoo fiirinayso waa inaad ugu tala gashaa intaad wax sii baranaysid maxaan qaban karaa maxaan gurigeyga anoo jooga wax waan bartay bachelorgayga barkinta intaan ku hoosturma iska fadhiisanaa waxaan dhahayaa haddaan xafiis tagayn waa iska fadhiisanaya no way marka aniga iguma dhicin qabadaas markii aan businesska bilaabayay anoo gurigeyga joogana wax kasta oo banaanka looga baahanayo because business markaa sameynaysa wax badan banaanka uga baahanaysa ama rag baad uga baahaneen niman inaad la soo shirtid ama inaad xafiis wax ka soo dhameystid ama inaad alaab dirtid ama inaad alaab soo gadatid waxa soo dhan markii horeba waxaan ugu talagalay ninkeyga ama zawjkeyga Ilaahay barakeeyo inuu wixii banaanka inuu soo qabto anything wax kasta oo banaanka aan uga baahdo inaan dhaho halkaas hawsha ka soo fududay taasna waxa fududaysay wada tashiga iyo isfahanka labada qof markasta haday wada hadlayaan wada tashanayaan
wixii caqaba keenay isla fududeynayaan waxooda horeyba u soconaya mooye ilaahayna uu barakeena dib uma dhacayo laakiin gabadha hadii dhahdo ana isku filan ninkeyga wax ka qarsanaya halkaas aan tagay ayuuna ogaanin lacagtan aan leeyahay ayuuna ogaanin caqaba badan baa la kulmaya wixina kaliya moodi kartid because ilaahay baa dhameystiran qof bini aadan ma dhameystirna marka soo wax qabanaysidna waxaad u baahan tahay qof ku kaalmeeya zawjkaagii gurigaad isla joogteen hadduu ku kaalmeyn waayo qof kale banaanka kaama kaalmeyn karo wax badan oo caqaba badan baa imanayso marka labada qof ee guriga wada dhistay oo rabaan inay shaqaystaan wax badan waxaa laga rabaa gabadha inay ninkeeda inay ka keensan karto dhigi karto aniga waxaan shaqeynay income-kan horta xaguu tegaya maana cunay maana cabaya mase ana wax gaar ku qabsanayso gurigeyga ilmahayga maaha igala shaqeey waxana waa hobbigeyga waan rabaa marnaba kama baaqanayo laakiin aad igala shaqeyso adigana waa muhiimada ku saaran ay gabadha cadkeeda ay soo dhacsato xaqeeda ay sheegan karto sababta gabdhaha Soomaaliyeed badankooda diinta Islaamkana ma bartaan caqabooyinka badanna waxay uga imanaysaa ma yaqaanaan xuquuqdooda saxda ah ninkeeda ay ku leedahay ama ay kala tashan karto hadduu ninkeedu diidan waxay dhihi kartaa okay ani halkaasaan maraya maseerna ha ii keenin sheekana ha ii keenin ogaanteeda laho waan soo qabsan karaa laakiin waan kugu ixtiraamay shaqada banaanka inaad soo qabato haddaa soo qaban weysidna ogaanteeda laho adaa qabanaysid taamkay guriga ka baxayso guriga qof ka kaalmaya hadduu san jirna dhahdo maalin fulaan halkaas baan aadaya kaale ilmahaaga kor ka sii dhowro marka labada qof waa inay u wada hadlaan si saraaxan carabtu waxay dhahdaa saraaxa raaxa Soomaali waxa lagu dhahaa si bil cadaan si cad oo qarqarsooni iyo laab aan ku jirin marka hadii wada hadal iyo qof kasta xaqiisa haduu ogsoon yahay oo la wada hadlay la wada tashanayo waxa laabay ma jiro bal horumar un baa imanaya yani waa saan isleeyahay ismaha waad ku mahadsantahay faafayntaadna siisay ma jirtaa caqabad kale oo isleedahay haweenka intay ku guda jiraan ama ay hal abuurka ganacsi bilaabayaan way la kulmaan waxay tahay fariintaada ku aadan ee leedahay haweenka uga falceliyaan arrinkaas caqabado badan ay la kulmaan oo looga baahan yahay inay gabdhaha Soomaaliyeed ama gabdhaha muslimaadka luqadan ku hadlay fahmaya inay aad uga taxadaraan horta gabadha dhalinyaro ganacsanaysa hadda tahay alxamdulillah ilaah ku barakay hore u sii soco laakiin iska ilaali waxyaalaha akhlaaqdaada diinteena waxayna fartay akhlaaqdan qayb iimaanka kamid ah inay tahay akhlaaqdana waa in kala cala khuluqna cadi marka rasuulka lagu dhacay sallallahu alayhi wasallam waa qayb kamid oo jannada aad ku tagi kartid marka gabadha Soomaaliyeed ganacsanaysa ama social media ka shaqeyso sida adiga hadda idaacadaad fadhidid ama business banaanka oo dukaanaha ka shaqeyso ama xafiis fadhido waxa laga rabaa inay akhlaaqdeeda ilaashato ama siyaasadda ku jirto waxyaalahan ka hadlo waxa kamid ah inta badan gabdhaha markay meelaha joogaan akhlaaqda koowaad way dhumiyaan marka gabdhaha inay akhlaaqdooda inay ilaaliyaan xaggaas caqabado badan baa uga imanaya gabdhaha waa inay akhlaaqdooda ilaaliyaan waxyaalaha xaraantan inay ka fogaadaan oo xoolo xalaal ah waracnimada inay ilaaliyaan just inayna ilaalinin only the benefits hooyo marka tahay hooyooyinka caqabadaha uga imaada xagga ganacsiga horta idaas dayacayso lacag bay raadinaysaa way ordaysaa iyada gabadh kasta oo ganacsata maanta hadaad fiirsid 80% gabdhaha dhan ma dhahayo 80% wajigooda waxa saaran koobabin madow way is-ilowday xidibteedii way dadalacantay lacag bay daba ordaysaa xitaa dhar qurux badan iyo nadaafad qurux badan iyo caafimaad qurux badan ma haysato way sii ordaysaa haddii xijaabka dhinac uga dhacay xitaa uma jeedo lacag bay tirinaysaa horta adiga naftaada fiiri waxa adiga caafimaadkaaga iyo sharaftaada dilaya ka hortag adiga horta isxaq dhowr adiga jeclow adiga is xushmee midda labaad markaad gurigaaga ka soo baxday gurigaaga yaa jooga gabdhaha jooga wiilala jooga adiga dhashay martiya joogta qaraaba joogta maxaa caqabo guriga ka imanaya akhlaaqdi guriga may dhumaysaa gabdhihii may ka wareegaan may ka halaabeen wiilashii masaaxiib waxan bay ku xiran yihiin inaad miisaantid labada dhinac waxaanaad u socotid iyo waxaanaad ka soo tagtay keeba muhiimsan kan hadduu ka dayacmaya kan kale ka soo tagtay dayacmaya labada dayacmaya keeba weyn anoo gurigeyga jooga qof aamina ma shaqaaleysiin kara ma kusoo control kara saacado yar ma maqnaan kara waxaas dhan in laga fiirsado ayaa fiican hooyooyinka Soomaaliyeed badankooda ganacsada ilmahooda banaanka joogaan ilmaha banaanka joogana akhira bir waa lagu xisaabtamaya marka waxaan dhihi lahaa laba xisaab ilmihii gurigaad ku dayacday iyo adiga oo ganacsata dadka xoolaha lana xisaabta akhira dadku way ka dambeeyaan marka waxaan dhihi lahaa qofku markasta waxa xasuusnaado diintiisa wixii Ilaahay faray hadduu qofku wax kasta diintiisa waafajiyay Ilaahay baa wax kasta u fududeynaya saas baan leeyahay ismahan ugu dambeyn ma jirtaa fariin aad u haysa haweenka oo dhanka ganacsiga ku aadan si kaalin muuqda uga qaataan ganacsiga noocyadiisa kala duwan aad weyn waa dardaaran fiican insha Allah aad baad mahadsan tahay gabdhaha Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa walaalayaal horta waxa haysta Ilaahay idin barakeeyo aan ku dadaalno wax xalaal ah in laga shaqeeyo laba aan ku dadaalno zakada in laga bixiyo saddex lagu dadaalo in sadaqada la badiyo waliba ehelka hoos loo fiiriyo ehelka hoose marka ku sadaqaysatid ilmahaaga iyo gurigaaga xitaa sadaqadu way ku badbaadaysaa
midda kale gabdhaha Soomaaliyeed waxaa leeyahay isku dayanina ha iskala koobeynina wax badan oo taqaanin oo talent badan baad leedihiin haddadan talentigaada garanaynin dad waxaa jira professional waxaas ka shaqeeya hadda aniga counseling markaan sameeyo gabdhaha Soomaaliyeed la shaqeysto hal abuur badan baan u sameeyaa markaan wareysigaas wax badan baa iga soo dhaxbaxa oo qofkaas uu ku fiicay markaasaan dhinacaas aad dhinacan iskaga tago ilaahayna waa ku guuleeyay gabdho badan marka waxaa la rabaa inay iska dhaafaan qiila waqaalaya sheekada iyo xanta iyo wareega iyo hebla waxaan bilowday ana waan bilaabay laakiin be yourself adiga isku kalsoona waxaad ku fiican tahay banaanka la imo insha Allah ilaahayna waa kugu guuleynayaa saas baan leeyahay ismahaan aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga si limid inaad codsigayga aqbashay jazakumullahu khayr assalamu alaykum